السلام عليكم waxa idin leeyahay asxaabta igu xiran jimco wanaagsan jimco mubaarak meel kasta aad joogtaan waa idin hambalyeynaya maalinta jimcaha waa maalin ciid waa maalin farxad leh soo dhawaada waa walaashiina ruqi oo idin leh meel kasta aad joogtaan hambalyo jimco wanaagsan asxaabay maalinta jimcaha maxaa laga rabaa maalinta jimcaha waxaa laga rabaa inaan akhrisano suuratul alkaaf hadaa ka seenin waa inaad dhageysataa jimcahan marka suuratul alkaaf aad akhrisato amba aad dhageysato ilaa iyo jimcaha kale laga gaarayo nuurkaaga ayaa baxay nuur ayaa ilaahay ku siinaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala nuurkana Allah ziyaadiyo farxina Allah ziyaadiyo ahbaab filah waxaan la soo qaybsanayaa maanta sida u jeedaan koobkaas waxaan ku shiitay banaane amba maxay ahaatay moos si qof walba si u taqaano iyo maxay ahaatay avocado ayaan shiitay sida u jeedaan laba xabo avocado iyo hal xabo moos asxaab marka hadaa ka heshaan videogan like na soo badiyahay asxaabay inta igu soo biirta dhamaan waxaan leeyahay waji furan ku soo dhawaada walaalay qaaliga sida ii sharaftan Allah idin sharfo idin mahad celinaya markastaba ahbaab filah alaabtii aan sheegay ayaa ii timid alaab far badan ayaa wiish ka dalbaday videoga xigo ayaa idinku soo sheegi doonaa idinku tusi doonaa kareemooyin ayaa ka dalbaday ma sha Allah waxyaabo far badan aan ka dalbaday marka videogan soo leed gareeya like insha Allah inta igu cusubna waxa la subscribe kanaga baqeylina soo dhawaada suuratul alkaaf hala akhristo insha Allah فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم لنبلوهم جاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم حاكدي لهذا asxaabay xaakadii leedan allaabahan sida u jeedaan quraacdayda waaye maanta waxaan ku quraac lahaay weeye waa xabad maxay ahaatay asxaabteed videoga series-kan la soo qaybsana xaakadii leedan maanta waa quraacdaydii midaan waa avocado iyo maxay ahaatay banana and moss sida u jeedaan hal xabo moos iyo laba xabo avocado ما شاء الله تبارك الله فيديو كان هدا كشان لايك شير كومنت نودها افوكادada saliid ku jirto jirkaaga u baahan tahay weegi sidii loo joogo mar ina shiidataa badsan laakiin subag badan ay leedahay hada miisaanka iska dhimaysid afokadada weegi mar ina cuntaa waa ka hada kashaan like share comment subscribe noo dhaha waa idin salaamaya meel kasta aad joogtaan
salaamu ullahi calaykum bye. qiyaamo markii la tagana ummadaha annaga ugu horeyna almaqdiyu lahum qabla alkhalaa'iq dadka la kala hufayo oo arrintooda la xukumayo oo hawshooda la hormarinayo waa ummadda nebiga sala allahu calayhi wasalam khalaa'iqdii kale iyo ummadihii kale oo horan oo taagan ayaa kuwaan la hormarinaya ummadda nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam khayru yawmin dalacat calayhi shamsu yowmu ljumuca maalin qorax ay soo baxdo waxaa ugu khayr badan maalinta jumcada fiihi khuliqa aadam waxaa weeyaan maalintii la abuuray nebiyullaahi aadam ayaa maalin jumco la abuuray wa fiihi udkhila aljanna waa maalintii jannada la geliyey wa fiihi ukhrija minha waa maalinkii laga soo saaray saddexdooda waxay ku dhaceen maalin jumco ayuu ahaa bal xadiidka kale nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam fiihi nafkhatu wa fiihi sacqa nafkhada buunka qiyaamaha maalinta uu dhacayaana waa la yeerinayaa waa maalin jumco ah sacqiga iyo fasaca iyo argagaxa weyn isaguna wuxuu dhacayaa maalin jumco ayuu dhacaya maalinkan isaga ahi waa ciid waxaana la yidhahdaa ciid lusbuuc asbuuca ciiddiisii baa la yidhaahdaa nebigaana sheegay sala allahu calayhi wasalam inuu ciid yahay wuxuu wariya alimaam ibnu maaja xadiidka cabdillaahi ibni cabbaas wuxuu nebigu yidhi ina hada alyawma ciid jacalahu allahu lilmuslimiin maalinkaani waa maalin ciid ah oo ilaahay dadka muslimiinta u yeelay oo siiyey weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala waa maalin ciid ah